maxaa sababay inaad ururada siyaasadeedada jira aad ku biiri weydaan amba aad ka mid noqon weydaan? suuragal lama ahayn gabadh inay hudheel karaysato, suuragal lama ahayn gabadh iyadoo weji qaawan inay meelaha timaado. Imikana de waan aragnaa, laakiin maxaa ku kalifay siyaasadda iyo taa ka gaabsanaya waxaa jira ururdiimeedadaasi oo dacwadda iyo diinta lagu fidiyo oo dhulalkeena dhammaan Soomaaliyeed ka jira. bal ururdiimeedadaasi noogu soo dhawow xukunkooga iyo faahfaahintoodaba. بسم الله الرحمن الرحيم. كلتي وعنا وناكسن دمانتين باه داوديال كسو دوادا برنامجكيني فقارها سؤالها تضباطك وحا برنامجك مرتكو دكتور فيصل محمد علي oo kamida culimada waaweyn ee Soomaaliyeed amba culimada Somaliland. دكتور فيصل ugu horeyn kusoo dhawaatay fiiga caalamiga ee MMTV iyo barnaamijka. Waan barakallahu fiikum. دكتور فيصل waa kuma hadaynu dhaano دكتور فيصل waxbarashadiisii hoose dhexe iyo saraba wuxuu ku qaatay wadanka heer jaamacadeed markay soo gaadhay wuxuu baxay wadanka Saudi Arabia halkaas oo degree iyo master iyo PhD ba uu ku soo dhameeyay jaamacadda Saudi Arabia ku taala ee jaamacadda Madiina. diyaar baad u tahay maanta inaad nagala soo qayb qaadato barnaamijka fagaaraha su'aalaha ee telefishinka caalamiga ee MMTV. diyaar baan u ahay insha Allah biidin Allah. وهاجاج دكتور أنت أينان برنامجك جودجرين بالهذا أنا واسوق هو بيوحني دكتور فيصل وكل شيء وما مقالة ده أرجيسات عبرشيد سوى صدق حي يسرى وقاطعي يعني إسلام حياة يعني وطنك هو يو كدي بنوه يا عم حقا إيو السعودية العربية بلاد هذا يقولون نوصله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ugu horeyn waan dhawahay marka xigtaadiyad baan ugu mahad celinaya TV-gan MMTV iyo howlwadeennadiisa iyo maamulayaashiisa iyo mas'uul agaasimaha guudba iyo Mustafa barnaamijkan daadihinaya dhamaantiin aad baan idin salaamaya. runtii qofku inuu iska sheekeeyo xogaa way yara mushkilad bay yara leedahay. qofku wuxuu ku fiican yahay inay cid kale inay ka warbixiso laakiin inta laga maarmaanka in sha Allah taala ku gaabsan doona. طبعا sida aad tilmaamtay waxaan ku dhashay magaaladan aynu caawa joogno Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan waliba dhakhtarkan weyn aan inaga fogeyn ayaan ku dhashay waqtiga la ii sheegay 16kii bishii 12aad meelahaas ay ahayd taqriiban laakiin anigoo yar ayaa reerku ka guureen Burco ee meesha la yaada ka guureen Hargeysa waxaan loo guuray Burco marka barbaarintaydii iyo ka caamistaydii waxay ahayd magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyada ayaan ka bilaabay waxbarashadii asaasiga koowaad iskuul ilaa imka furan oo la dhigto la yiraahdo sida la yiraahdo Ismaan Cabdi Cali oo ku yaala Burco kaasaan ka bilaabay waxbarashada dugsiga hoose kadibna midaan kaba fogeyno la yiraahdo Sheekh Yusuf Kaynuun ayaan isagana u guuray oo yani ayaan wareegay dugsiga dhexe taqriiban meelaha markaan ku dhex jiray waa kii dagaaladu ay ka dhaceen laga qaxay gobolada dhexe ayaan ku dhamaystay dugsigii dhexe kadibna dugsigii sare qaybo kamida iyo markii dambe macadkii shareecada u dhigmayay dugsi sare ee ku yaalay magaalada Ceerigaabo ayaan waxbarashadeedii ka sii watay. inta kadib waxaan u wareegay in waxbarashada shareecada islaamka barashadeeda inaan awood saaro iyadii baan markaa bilaabay ilaa markii dambe Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan tago magaalada barakaysan ee Madiina al-Munawwara taasoo aan ka bilaabay waxbarashada culumta shareecada gaar ahaan faculty-ga loo yaqaano xadiiska iyo daraasaadka islaamiga iyadaan markaa 14 sanadood oo ka bilaabmaysa bachelorka ilaa PhD-ga aan waday waan ku soo dhameeyay waxaan soo dhameeyay 2014 bishii afraad ayaan wadanka dib ugu soo noqday markaan sidaa u soo noqday waxaan u yagleelay jaamacadan la yiraahdo jaamacatu najaax ee gobolka Togdheer ka furan aniga iyo Dr. Xasan Sheekh Ali Warsame iyo culimo kale asaasnay iyadana ka noqday gudoomiyihii koowaad ee jaamacadaas 4 sanadood iyadaan waxa weeyaan iyo sanadkii diyaar garowga iyadaan hayay
waqtigii jaamacadda aan xilkeeda wareejiyey maamulkeeda gaarka ah oo aan ku wareejiyey walaalkii doctor xasanna waxaan iyadana yagleelay xarun cilmi baadhis oo la yidhaahdo Qurduba Center oo iyaduna Burco ku taalla inahaasaan odhan karaya inta ugu muhiimsan waxa weeyaan marxaladayga nolosha gaar ahaan marxalada waxbarashada. wahagaag doctor markaynu dib ugu yara noqono waayahaagii caruurnimo dabcan saad noo sheegtay magaalada Hargeysa ayaad ku dhalatay waliba dhakhtarka weyn ayaad ku dhalatay anu waxaan isla geed hoosti ayuu ku dhashay bal haddaan dib u celino taariikhdaada waayahaagii caruurnimo iyo xasuusahaagii caruurnimo maxaad xasuusataa dhacdooyinkii caruurnimo wallaahi dhacdada caruurnimo horta waa dee qofka bini'aadanka noloshiisa inta ugu macaan wey inta uu dhalinyarada yahay aan takliif saarmine waxa weeyaan aanu noqon dee qof weyn noqon waa nolosha inta ugu macaan baa la odhan karayaayo waa nolol iska furan oo qofku uu badanaaba wax badan oo ciriiriyay wax badan oo ka fakaraya aanu jirin marka inta ugu macaaneed nolosheedu waxay intii waxa weeyaan ku qaatay waa Burco marka xusuuso fara badan oo ciyaalnimo waa la yaqaanaa ciyaalnimo waxay tahay waxay ka shaqeeyaan iyo waxay jecel yihiin iyo waxay ku mashquulsan yihiin aad baa dee runtii loo yaqaanaa marka waxyaabahan dee aadka xusuusta ay ku reebay waxay ahayd runtii anigoo yar maan jeclayn waxyaabaha ciyaaraha dadku ay jecel yihiin yani yar ciyaalku ay jecel yihiin kubadda iyo kubadda waxa laga yaabaa inaan aad u yarayd kubadda ciyaaradeeda iyo ka mashquulkeeda iyo ka daba dhaceeda bale waxaan dareemi jiray in aan lahaa inaan u iilanayay ama aan danayn jiray inaan dhageysto masaajidada iyo tago iyo ayaan garanayaa masaajidada Burco ku yaala masaajid ayaa masjid jaamica iyo masaajid imika aan joogo oo la yiraahdo Saalixyada culimadii Saalixyada ay gacanta ku hayeen maalinta Jimcaha iyo maalinta Arbacada iyo shaah baa lagu sameyn jiray shaahaas maalintaas wuxuu ahaa maalin kilaadhi cascaso waaweyn ayaa inta casarka quraan iyo ducooyin iyo wax la akhriyo ayaa wax la sameyn jiray shaah baa ciyaalka loo qaybin jiray marka shaahaasi runtii wuxuu lahaa dhadhan gaar ayuu lahaa ilaa imika waan xusuustaayo imika ma ku fakaraa inaan masaajidada dib loogu soo celiyo shaaha ciyaalka yar la siin jiray masaajidku jeclaysiinaya oo qofkiinu masaajidkii ku xidhnaado ayuu u horseedaya marka runtii taasaa kulliba ka mid ah xusuusahayga aan aadka aan u dareemo ama aan u daneeyo markaan yaraa waayay maadaama adiga ay raad ku lahayd oo aan xasuus aanad ka go'ayn ay tahay sida hadalkaa ka muuqato waxaad tiri dib ayaynu rabnaa inaynu masaajidada ugu soo celino maxaa dabargooyay baad furan lahayd shaaxaasi wallahi waxaan isleeyahay waxa dabargooyay wadaadadan ahlu saxwa loo yaqaanay ama dhalinyarada ama loo yaqaanay markii ay ka caameen wadaadadii culimadii de waqtigaa joogay de wax badan ay ku saxsan yihiin baa jiray waxyaabaha qaarkood oo de laga haboonaayo de jiray wax kastaaba ha keenaana way jireen marka wadaadadii markii ay soo galeen saaxadii wixii ka soo horeeyay oo dhanba waxaa lagu talagalay in laga saaro saaxada taas markaa waxay ahayd de waxyaabo badan oo wanaagsan ayay ahayd oo wax diidaya in shaah lagu cabo masaajidka ama barxadda masaajidka oo dadkan ay intay markay quraanka akhristaan iyo ay shaah cabaan ama dadka imanaya cabaan wax diidaya de ma jiraan marka runtii waxaan keenay un baan filayaa uun dhalinyaranima keentay in laga saaro laakiin waad rajaynaysaa inaad soo celisaan maadaama xasuus kugu leedahay dib shaaxa u soo celisaan nacam la masaajid baan imika anigu Burco midna gacanta ku hayaayo dee anigaaba dhisay midna waa culimada Saalixyada masaajidka Saalixyada magaalada ku yaalla ugu weyn masaajidada ugu weyn kamid ah waan duruustana ka dhigo khudbadahana ka akhriyo labada waxaan islaahay insha Allah waad soo celisid hadii la yiraahdo insha Allah anaguna dadweynaha waxaanu leenahay dee shaax wanaagsan Dr. Faisal dabcan 14 sano ayaad dhulkan hooyo aad ka maqnay oo joogtay wadan aan ahay dhulkaagii hooyo waxna aad ku baranaysay te waayihiisii iyo caqabadihiisii intaba uu wataa bal hadda wadankaasi Sacuudi Carabiya ee 14 sano wax barasho u joogtay waayihiisa iyo caqabadihiisaasi loo yar dumar Mustafa Soomaali waxay tiraa niman dhul marin dhaaya male run ahaantii waxaan isleeyahay inaan Sacuudiga cilmi u doonto noloshayda wax badan bay ka bedeshay waxay ii furtay albaabo waxa isbedelay garaadkaygii uu isbedelay qaabkan u fakarayay marka magaaladaada ama wadankaaga aad joogto garaadkaagu uu kooban yahay marka ummad kale de jaamacadda aan dhiganaynay 150 dawladood ayaa dhiganayay
oo caalamkii oo qaaradihii adduunyada dhan baa laga wada dhiganayay dadka isdhexgelaya qaar waxaad ku arkaysaa waxaad kaga fiican tahay adigu qaar waxay kaaga fiican yihiin qaar dadku siday u nool yihiin iyo dhinaca kale dee aqoontaadu iyo kordhayso oo culimo waaweyn aan ugu tagnay meeshii marka waxaan isleeyahay waxay ka mid ahayd khayr ilaahay la doonay inaan u hayaamo magaaladii barakaysnayd ee nebi maxamed sala allahu alayh wasalam muddo 14 sannadoodna aan cilmi ku baranayay waa khayr ilaahay ila doono ilaahay uga mahadnaqayo dabcan waa qurba oo markaad ka maqan tahay deegaankaagii iyo dadkaagii aad ka dhex maqan tahay wanaag badan ha yaallo oo khayrkii labadii masaajid ee xaram iyo salaadii masaajidka iyo wanaagaas ha yaallo laakiin haddana waxaa tahay qof qurba ku maqan qurbuhuna wuxuu leeyahay waayihiisu leeyahay iyo hawshiisu leeyahay marka xanuuna ku soo mari kara waxa ku soo maraya waqtiyada qaarkood familygaaga iyo dadkaaga aad ka timido dhibaato ku iman karto warar lagu soo sheegi karo waxayntaada iyo yar oo dee markaad arday tahay waxayntaadu aad bay u yar tahay waliba anigoo xaaslan tegay jaamacadda oo guurkan ku degdegay anigoo xaasle baan tegay marka laba mas-uuliyaddii waxbarashadii aad u timid inaad xasiliso iyo mas-uuliyaddii reerkii iyo familygii ku saaraa inaad iyaga laftoodii adag ku saarantay mas-uuliyaddii marka waayaheedu runtii qurbuhu badan yahay laakiin waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa dhibiguma soo gaadhin intaan joogay waxaa dee bilaada kuma cabasho waayo waa laga yaabaa dee wax yar inuu dulqaadan waayo laakiin guud ahaan marka la eego nicmo weyn baa ilaahay iiga dhiibay subxaanahu watacaala iyadoo weliba aan ku xanuunsaday oo sanadkii ugu dambeeyey bajularka aan dhammaynayey waan xanuunsaday weliba dhabar xanuun lafahana waxay yara gaadheen oo fadhiyadii faraha badnaa iyo waxaa dhabar xanuun baan yeeshay deedna waxaa igu kulmay anigoo doonaya sanadka ugu dambeeya dee gunaanadka waxbarashadu culayskiisu leeyahay waxaa daba socda masterkii aan doonayay inaan u wareego oo isaguna culayskiisa leh labadaa culays oo sugayay xanuun baa igu kulmay marka sanadkii igu cuslaa sanadkaasuu ahaa laakiin maca daalika dhib kastoo kusoo mara markay ku weydaarto sheekoon baa ka hadha marka alxamdulilah wax dhibaataa igama soo gaadhin dalka sacuudi carabiya gaar ahaan jaamacaddii madiinati almunawara jaamacaddaasi bal haddaa in yar in ay arday ka qaadata geeska africa iyo dhammaan dunida oo dhan hadafka ugu weyn ee ay leedahay muxuu yahay basrole walaalow sacuudigu dee wuxuu isu arkayey amaba dee isu arkaa waqtiyada qaarkood in uu hayo mas-uuliyad ummadoo dhan ka dhexaysa khaasatan labada xaram waa ficlan dee wayn ahaydo qofka labada xaram maamulaya waa inuu isu dhigaa inuu ummadii muslimiinta maadaama halkan ay soo wada beegsanayaan inuu dee wax taro oo uu wax u fudaydiyo marka asaaska fikraddu waxay ku salaysnayd in maadaama labadii xaram ay meesha ku yaalaan in dadkan muslimiinta ah loo furo waxbarasho inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan wadamada ay ku yar tahay ama islaamka ku yar yahay ama waxbarashada diintu ay ku yar tahay sidaa darteed bay makana ka fureen jaamacatu mulqura madiinana ay ka fureen jaamaca alislaamiya bilmadiina almunawara jaamacatu mulqura dee waxay kaga duwanay iyadu sacuudiyiinta ku badnaa dadka muwaadiniinta ku badnaa dad kalena way aqbali jireen laakiin tan aanu dhigan jiray waxaa u badnaa oo 70% waxaa lahaa dadka dibadda ay ka keenayaan marka message-ka ay ku gudanayaan waxay ahayd sida ka cadeen qoraalkii ama lagu aasaasay jaamacadda in ay tahay hadiyad ummadda muslimiinta ay ugu talagaleen in ubadka muslimiinta wax la baro in loo fudayday waxbarashadu iyo wixii ay u baahneed waxbarashadu hadday waxbarashadii noqoto hadday waxay ku noolaan lahaayeen hadday noqoto wadankooda markay ku noqonayaan safarada u baxayaan hadday tigidhada laga bixiyo ay tahay in la diyaariyo dadka muslimiinta hadafka ugu weyn ay lahaayeen taasay hadiye inay muujiyaan inay boos ugu jiraan muslimiinta maadaama labadii xaram iyagu maamulayaan inay boos ugu jiraan waa ficlan waxaa la odhan karayaa marka dee lilaahi la eegayo wax badan way ku guulaysteen oo dad fara badan baa dee ku intifaacay wax kastoo xitaa iyagu uga jeedaan waxa weeye haddana dad badan baa ku intifaacay oo dad badan baa aqoon ka kororsaday oo caalam islaami meel kastoo la tago waxaa laga yaabaa dadka cilmiga faafinaya ama waa dad ka soo baxay jaamacadahooda ama dad ka soo baxay baa wax baray oo berigii hore muslimiinta waxaa ugu jiray azhar marka waxaad moodaa inay gabtay kaalinteeda ay gabtay oo ama ha noqotay dee sacuudiga oo lacag iyo batrool iyo wax badan helay oo waxaanay qaban karin qabtay ha noqdo marka waxaad moodaa calaa kulli xaal in ujeedaday u asaaseen wax badan oo ka mid inuu ka hirgalay taasaa laakiin ugu weyneed sida ku cad
qoraalkii lagu aasaasay inay tahay hadiyad muslimiinta loo gudbinayo in wax la barayo muslimiinta iyo dee in la muujiyo dabcan makaanada iyo booska ay ku jirto sacuudiga ugu jira muslimiinta. Nacam. waay isla sacuudigana ku guda jirnaa sacuudigu intan dambe waxaad moodaa aragtiyo fara badan inuu kasoo tanaasulayo oo maxay ahaday aynu ku arkayno warbaahinta isagoo aragtiyo fara badan kasoo dabcaya ay ka mid tahay dhanka dumarka oo kale dumarka markii hore waa la tigtigi jiray oo may jirin wax haba yaraatee maxay ahaday loo oglaa iminka laakiin waxyaalo fara badan waa loo fasaxay tii u dambeysay oo ahayd in gabdhuhu ay iman karaan bilaa muxram ay ku iman karaan xajka aragtiyahaasi markii aad joogtay miyay jireen qaabkiisa maxay hayday aysan iminka wax u socdaan aad furan kartaa weeyi walaalo sacuudiga dowlad baa maamusha layihahda sacuudiga maamula oo boqortooye ah waxaan filayaa kolleyba inay anigu positionkan jooga ee cilmi shareeca ah inaanay munaasib igu ahayn in aan dee wax ka sheego ama idhaahdo markaan taana way ku saxsan yihiin tallaabadana way ku khaldan yihiinoo dee marka horeba xaafad waxay ugu wareegtaa wax xasarad bay Soomaalidu yiraahdaano dama oran karaya imika sacuudigu tallaabada uu qaadayna wuu ku khaldan taana wuu ku saxsan yahay taan waayo ma joogo meel ama laygama dalbin meel aan ku qiimeeyo oo leeyahay qiimee lagu yiraahdo sacuudiga waana arrin kulliba dee salka ku haysa siyaasad dawladeed marka dawlad waliba dee waxay mudan tahay lagu ixtiraamo siyaasadeeda oo wixii ay doorato culimada iga aqoon badanna way leeyihiin ducaadiga aqoon badan bay leeyihiin marka wax isleeyahay inaanay munaasib ahayn inaan dhex galo yiraahdo taana way ku khaldanaayeen taana way qaataan ama inay isbedeleen dee dadku dhan wada ogyihiin waana markaan tagay dee suuragal ma yahayn gabadh inay gaari ka hayso suuragal ma yahayn gabadh inay hudheel karaysato suuragal ma yahayn gabadh iyadoo weji qaawan inay meelaha timaado imikana dee waan aragnaa laakiin maxaa ku kalifay siyaasadda iyo taa ka gaabsanaya barakallahu fiik waayahay Dr. Faisal inaga wax saameeyna ma nagu yeelanaysaa maadaama sacuudigu yahay halka ay Soomaalidu wada eegato wax saameeyna inaga ma nagu yeelanaysaa صح وسؤال مهم wax saameyn nagu yeelan maayo inagu sideedaba qof ma qalidano qof ilaahay nagu adoonsaday inay isaga daba galno waa nabi maxamed ahayn ma jiro dadkuna way isbedbedelaan oo waxa weeye qofku ama khalad isla bedel ama sax isla bedelee hadii dad kala raacayo dadku daba khilaayeen marka sidaa daraaddeed inaga wax allaale waxay raad nagu leedahay waxay ku wanaagsan yihiinna dad muslimiin ay nahayo wanaaga waa la wada qabtaayo waa la isku kaashadaa wixii ka khaldamana de khaltii ku gaariyay ma aha wax inaga inoo soo gudbay sababtoo iyagu ina mana xukumaan raad toosana de inagu ma laha waa dad walaaladeena waa xarameynkiiba inoo hayaan way ku mahadsan yihiin wayna ku amaanan yihiin inay xarameynkii inoo hayaan laakiin wax raad oo anigu kulli baan ogahay oo inagu yeelan karto hadday sidaa yeelanayna waa inay sidaa yeelnaa de kulliba cid tirina ma garanayo una malayn maayo inay jirto wax raad inagu yeelanayso culimaynu leenahay waxaynu leenahay dad aqoon-yahana baynu leenahay marka macnaheedu ma aha anigu jaamacad sacuudiya inaan ka soo baxay wax kastoo culimada sacuudigu ay tiraahdo inaan idhaahdaa dee kuma khasbanin wax la ii baray waa inaan wixii daliilku ituso aan qaato dadkana faafiyo maaha wixii hebel yiri inaan faafiyo taa marnaba dee ma jirto wax suuragalana maaha wahagaag Dr. Faisal aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijka fagaaraha su'aalaha waxaana martii inoogu adawadayaal Dr. Faisal waa markii uu horeysay ee barnaamijka fagaaraha su'aalaha aanu ku soo casuuno sheekh aad baan kaaga mahadnaqaynaa mar kale in aad marti ku tahay wahagaag Dr. Faisal waxa jira urdimeedadaasi oo dacwadda iyo diinta lagu fidiyo oo dalkeena dhammaan Soomaaliyeed ka jira bal urdimeedadaasi noogu soo dhawow xukunkooga iyo faahfaahintoodaba مصطفى وسؤال مهم رنتي وانا سؤال باهن ان لا يرى قيحو كلمه urur diimeed waxaan ku bedeli karaa iskaashi diimeed iyadoo ognahay lafdiga sharcigu inta badan alfaad sharciyo way jirtaayo sharcigu uu isagu dhigay laakiin wixii kale aadamu isticmaalaan waxay u baahan tahay in xaqiiqada waxba kama bedelaan وحقيقة على إيجا شيء حقيقة بيها يهري الله هذا نمك خمر قفوب هي خمر ينويها حكم خمر قاعدا معي مرنا ما قاعدا معي عندما أنا كنت وحاران خمر يلفتي سعدي ما قاعد كلا الله بحيو لي هذا وقبوتشي هاللابتا يعني أنا كله قبوتشي إسكان لهنا الحكم كيو حكم بدل ما يوحاران خمر وخمري مركا لفظي يعني ما دام
siyaasadeed ay jiraan urur ganacsiyadeed ay jiraan bal laga yaabaa dadka qaarkood inay la yara karaahiyeystaan urur diimeed sidaa daraadeed waxaan u baahannahay bal in aynu urur kelimata urur waa dad isu yimid weeye in la isu yimaadaana xukun sharci kuma lama xidhiidho daat ahaan lama xidhiidho xukunku wuxuu la xidhiidhaa oo laga dhex baari karaa waxaa lagu kulmay kow qaabka loo kulmay laba haddaba ilaahay wuxuu ina faray in aynu midowno oo kulanno wactasimuu bixabli illaahi jamiican baa ilaahay xadhigga ilaahay wada qabsada markaasaa ilahay wuxuu raaciyey walaa tafaraquu ha kala tegina oo ha ku kala tegina dhinaca kale alla wuxuu ina faray watacaawanuu cala albiri waataqwa alla ka cabsi iyo samafal waxa weeyaan wada qabta oo bimacnaa isu kaalmaysta haddaba waxaa isweydiin leh waanay muhim tahay runtii ardayda iyo dadka muslimiinta ee aqoontooda aanad u buurayn dadka ahlucilmiga waxa saaran inaanay jumladu ugu dhiibin wax u baahan in la tafaariikheeyo sidaa daraaddeed waan tafaariikhaynaya waxaa tafaariiqdu ka bilaabmaysaa midow kastaaba mawaajiba in la midoobo dhinac walba laba kala tag kastaaba miyaa lagu bidcoobayaa ama xaaraam miyuu qofka ku dhacay tusaalahay ku caddaanaysaa laba tusaalaan soo qaadanayaayo siyaasadda in laga midoobaa xukunkeedu waa maxay waajib bay nagu tahay muslimiinta waajib bay ku tahay inay dowlad waaxida yeeshaan inagoo og dowlad in la sameeyaa inay waajibaadka diinigaa ka mid tahay oo in xaakim la sameeyo oo dowlad la dhiso waajibaadka diiniga ka mid tahay shaygaa diinta ka mida haddii lagu kala tago dowlado kala duwan la sameeyo xukunkeedu muxuu noqonayaa taasaan uga jawaabo waxaan odhan karaa nebigu sala allahu calayh wasalam 107 sannadood buu mootanaa 107 sannadood isagoo mootan ayaa ugu dambeysay dowlad muslimoo mid ah oo midh keliya ah yani 138 ayaa dowladdii bani umaye markii laga qabsaday waddankan ay xukumayeen ciraaq iyo waddankan shaam la yidhaahdo iyo xijaas iyo laga qabsaday ayaa qoladii bani umaya waxay u carareen meesha la yidhaahdo andalus ama iminka loo yaqaano spain dowlad bay ka aasaasteen laba dowladood bay markaa hayeen taariikhdaas nebiga oo sii mootanaa 120 sanadba waxa bilaabmay laba dowladood oo muslimiintu leeyihiin maantana inta dowladaha muslimiintu ay leeyihiin waa la ogyahay marka somaliland waa dowlad jabuuti waa dowlad soomaaliya waa dowlad ma kala tagin mise ma kala tegin way kala tageen laba maamul oo kala duwan weeye ama laba dowladood oo kala duwan ma waxaa la odhan karaa markaa sharcigii ilaahay dadka insaan muslimiintu yeelaan way ku dambaabeen oo xaaraan bay ku dhaceen may lama odhan karo culimada islaamka wax tiri iyada waa lala kala noolaa caalimka andalus deganna dowladda andalus buu ka amar qaadanayay caalimka mashriqa deganna mashriqa kuwa imika joogaana ninka sacuudiga dowladda sacuudigu ayuu ka amar qaataa ka yamanigana yaman buu ka amar qaataa waxaynu garanaynaa markaa inaan laynaga dalbin wujuuban laynooga dalbin inaynu dowlad waaxida samaysano kaasi waa tusaale marka tafaruqaa dhacayna wax raada kama tegin diin lama odhan karo dikna waxaa ka dhalanaya salafkii ummaddu inay aahimiin ahaayeen wada dambaabeen mana dhicin dhinaca kale haddaan kaa tuso waxaa jirta madaahib islaama shaaficiya xambaliya maalikiya iyo xanafiya masaa'il diin ay isku khilaafsan yihiin oo qola waliba madhabtooday leeyihiin masaa'il aan la soo koobi karin oo fara badan baana isku khilaafsan yihiin oo nina leeyahay waa xaaraan nina leeyahay waa xalaal ma iskhilaafin mise ma khilaafin ma iskhilaafin tafaruq ma la odhan karaa mise lama odhan karo lama odhan karo idan halkaa waxaa kaaga buuqanayo kaaga iftiimaya kelmaddan ah hal la midoobo inay su-aali daba taallo yaan la tafaruqinina inay su-aali daba taallo oo intaasaanay ku fillayn oo kulanka la kulmayaa waxaa lagu kulmayaa maxay tahay ayaa la baadhayaa waxaa la baadhayaa oo asal u ah oo culimmaduna ay isla ogol yihiin waxa lagu ictisaamaya ee lagu midoobayo ee lagu kulmaya aayaduu sheegeen waxa weeye waa usuusha diinta waa usuusha diinta ee aan iyada marnaba laisku khilaafi karin taas waa mid tafaruqana waxaa lagu tafaruqayaa ee tafaruq qofkii la odhanayaa waa markuu usuushii diinta laysku khilaafo tafaruqa marka maxaa ka soo baxaya saddex qolaa ka soo baxaya oo la odhanaya waa min ahli tafaruq
manhaj tafaruqa waxa noqonaya kow i'tiqaadkii hadii la isku khilaafo taasama waxa ka soo baxay jahmiya mu'tazila khawarij firqa loo yaqaan waligood ba jiray iyagoo marka waxay ku dhaceen waa maaha waxay ku dhaceen waa maxay waxay ku dhaceen ma aha inay ururo diimeed furteen ma aha tacaawun diiniyayna ku dhaceen ma aha magac inay la baxeen ma aha madaxweyne la baxeen ma aha ee masaa'il diini ay aqeedadina maxamed ku khilaafeen saas ahlu tafarruq noqdeen qolo labaad ay iyaguna ahlu tafarruq noqonaya ahlu tafarruq waxa noqonaya madaahibtii lafteeda ay niri way banaantay asalka in la isku khilaafo hadii tacasub iyo dadka muslimiinta isku culaadiyaan oo lagu kala tago iyana waxay noqonaysaa tafarruq bay noqonaysaa oo مثلا bisinka waa la jahri karaa iyo lama jahri karo oo mas'ala culimada isku khilaafeen hadii dadka isku culaatamaan oo yiraahdo anigu qolada la tukan maayo sababtoo bisinka kor u qaadan bisinka hoos u dhigaan waxa la oranayaa min ahli tafarruq baa tahay qolada saddexaadna waa cid kasta oo mas'alo ahlul cilmigu ay isku khilaafsan yihiin ama khilaafkeedu uu saa'iq yahay oo la isku khilaafi karo cid kasta oo walaa iyo bara ku xidha oo dadka sokeeye kaga dhigata kuna fogeysa masaa'ishaas ahlu tafarruq ikhtilaaf ay noqonayaan inta hadaba daynu sida u tafaariikhaynay kulamadan dadkan kulmay ee ama ururaha loo bixiyo ama iskaashi diimeedyada loo bixiyo intaas ma laga baaraya laakiin way isu yimaadeen oo dacwadii bay wada qabteen saddexda arrimoodna midna lagama helin meel ay ka soo galayaan ahlu tafarruq ma jirto mara garanaya xuduud cilmi qofka garanayana waxa fiican inuu inta aan ku soo dhawaado oo uu yiraahdo halka iyo halkaas ay kaga dhaceen wax sharci oo diidaya in dadku markaa dadkii caqiidadoodii isku mid ka noqdeen ee tacasub aan ku xireynin wixii dad kale ku khilaafeen ee aan soo aqoonin tacasub xad wajida tacasub waxa looga jeedaa carabiga qofku inuu shay isjeclaysiiyo isaga uu xamaasadoodo isaga uu difaaco dadka kale waxa weeye qofkii ku waafaqo uu sokeeye ka dhigto kii ku waafaqi waayo uu fogeeyo ka noocaas dadka ku dhaca ahlu tafarruqa laakiin dad waxa ka maran waa shay banaan in la isu kaashado waxay soo gudagalaysaa tacaawunkii ilaahayna faray inaga alla wuxuu faray inaynu tacaawunno cidda lala hadlayana waa muslimiin waxaynu ku tacaawunaynaana waa albir wa taqwa kayfiyadaan u tacaawunayna inaga laynooga tegey imika masaajidadii masaajida badan baa waddanka ka dhisan soo maaha masaajidada macid baa wada haysa keliya masaajida intii in boqolaa wada haysa adaan ku weydiiyey waadax wey su-aashu jawaabtu waxa weeye masaajidada somaliland ka dhisan waxa haya dad kala duwanoo magacyale baa haya qaar jamaacatu tabliiq baa haya oo culimmada waddanka ka mida qaar waxaa haya culimmada ictisaamka oo culimmada waddanka ka mida qaar waxaa ka haya qolada salafiyada la yiraahdo culimmada waddanka ka mida qaar waxaa haya odayaashii hore culimmada ayaa haya marka oo suufiyadii ama magaci doonaanba ha wataane magacu ceeb ma aha magacu haddaan wax xun tusaynin wax sharciyo diidaya sida adiga maxamed lagugu bixiyey ama mustafa lagugu bixiyey ayaan magacu ceeb u lahayn marka dadku marka inay weliba dee qolo waliba way isku xidhan yihiin oo ninka burco jooga ama hargeysa jooga ee masaajidda wada maamula way iska waxba ka wada dhexeeya waxa ka wada dhexeeya wax weeye masaajidadan inay wada maamushaan hadday korgo yara kacaan oo magac la baxaana wax mushkilada ma laha hadday maamulkii madax iyo mijo u kala sameeyaanna wax mushkilada ma laha laakiin waxay ku kulmeen waxaasoo dhan u dhisayaan ma aha in ay yihiin dowlad ee waxa weeye waxay habaynayaan intan ay ku kulmeen dacwadda ayay habaysanayaan taasay isku maqlayaan taasay isu kaalmaysanayaan marka haddii sidaa loo dhigo dee wax diidaya oo sharciga ilaahay aanu garan maayo ciddii iyadu marka laakiin khalad caqadiya ku dhacda ama tacasub ku dhacda ama walaa iyo baraa jeclaysiin iyo isnecbaysiin cid gaara ku saleeya kuwaasi dee iyagu si gaara loo maaraynayaayo khaladkaasaa looga nasteexaynaya ay ku dhaceen laakiin tii ah waa urur diimeedku haddii uu sidaa inu fasirnay ay tahayna wax diidaya maahay bal ee nusuusta sharciga iyo qawaacidda sharcigu iyadayna faraysaa inay dadku isu kaashadaan tacaawunka iskaashigeena wuxuu yeelanayaa darajaad kala sarreeya mar wuxuu noqonayaa mid guud mid wuxuu noqonayaa in isku xaafada mar wuxuu noqonayaa in isku hayb ah mar wuxuu noqonayaa in isku degaan ah marka
bal ee culimada ijtimaacigu sida ninka ibn khaldun leeyahay kale wuxuu tilmaamay iyo maawardi oo kale waxay tilmaamaan inayba tahay dadku inay wax wada qabsadaan daruura ijtimaaciyo xayawaanka kaga duwan yihiin way oo macna xayawaanka waxa lagaaga soocay ee aqliga lagu siiyay inaad isu baahan tihiin waana cibaarada ay yiraahdaan al-insaanu madaniyun bi tabcihi marka kulanka iyo wax wada qabsiga iyo in la iskaalmaystaa waa baahi aadami weeye cidiidi kartaan ma jirto waxaynu baaraynaa on maxaa lagu kulmay qaabkeeba loo kulmay qaabkeeba wax loo wada qabsaday ayaynu baaraynaa waagaag Dr. Faisal dad badani waxay aaminsan yihiin urdiimadada ka jira dhulkeena Soomaaliyeed si guud inay ka dhisan yihiin oo laga aas-aasay waddanada Sacuudi Carabiya arinta maxaa ka jira walaalo ogaalkii anigu ma ogi way anigu ogaalkayga oo dee waxaan ka warbixinayaa waxaan taagnaa ama meel ay ku qoran tahay aan arkay ama aan dee fadhiyey marka intaa midna ma ogi laakiin haddii looga jeedo maalan la yidhaahdo jamaacada tabliiqa Pakistan baa laga aasasay haddii la yidhaahdo haddii looga jeedo yani culimmada jamaacada tabliiq waxay ku xidhan yihiin oo ay tagaan meesha la yidhaahdo Pakistan oo culimo iyaguna tabliiq oo Pakistan jooga ayay isbooqdaan oo isu yimaadaan taasi way jirtaa haddii looga jeedo culimada jamaacatul ictisaam ama qolyahan salafiyada iyo dhammaantood la isku yidhaahdo salafiyada guud la isku wada yidhaahdo iyaguna inay dee raggii aasaasay ama baraarugan bilaabay inay sacuudiga oo kale arday ka ahaayeen waa caadtaasi way jirtaa lama inkiri karo laakiin meel inta ay tagtay tiri waan idin diray waan idin aasaasnay hawshaa sidaa ku shaqeeya u malayn maayo inay jirto way magaca ictisaam iyo magaca salafiya waxaad samaysay labada waad kala dhigtay haddana si guud la isku yidhaa waa tiri salafiya bal hadda annagay daawadayaasha halkaa nafaasiya walaal wax kale ma aha salafinimadu waa al-intisaab ila salaf way salafka la sheegayana dhowr qowl baa culimadu ka sheegeen qolay waxay yiraahdaan waa saxaabada kaliya way ayaa salaf la yiraahdaa salaf waa dadkii horeeyay baa looga jeedaa hormaray way qol waxay yiraahdaan waa taabiciinta iyo saxaabada qol waxay yiraahdaan waa taabiciinta iyo saxaabada ala kulli xaal qof kasta adaalkayga sumada aad u faham qof kasta oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo quruntii mufadalka ah siday diinta u fahmeen ee ay u qaateen iyo caqiidadoodii ku waafaqa iyo usuul al-istidlaal qaabka wax loo daliishada ku waafaqa waa salafi marka salafikaasa inna ka noocaas marka waa waajib in la raaca ma aha sunno iyo mustaxab waa waajib in saxaabadii iyo taabiciintii la raacaa oo qaabkay diinta u fahmeen loo fahmaa waa waajib inaan anigu idhaahdo markaa salafi baan ahay iyadu waajib maaha shay iska bannaan yani inaan ka warbixiyo wixii aan aaminsanaa inaan ka warbixiyo dadka u sheego idhahdo waa nimayo sidaasaan ahay waajib igu maaha taa markaynu ogaano waxaa jira dad laga yaabo inay magacan salafi ay la baxeen oo iyagu si gaara isugu sheegeen anaga salafiyiin baana la yidhaahdaa oo laga yaabo qof kale inay yidhahdaan kaasi salafi ma aha ka noocaas wuxuu iska noqonayaa marka ururdiimeed buu noqonayaa ururdiimeed ayuu noqonayaa marka ictisaam haddii laga eego macnihii guud aan sharaxay waa salafiyiin qolada kale salafi la baxay iyaguna waa salafiyiin marka la eegayo intimaagii saxaabada iyo taabiciintii in la raacayo waa isku mid halkaa wax allaalo xig kala duwan ma jiraan xagga magaca ayaa qolana magacii magac ka sokeeya oo ah magac lagu wada shaqeeyay la baxeen oo ictisaam la yiraahdo qolana waxay la baxeen yiraahdeen anaga salafiyana la yiraahdaa laakiin culimadii muslimiinta faraha badnayd kutubtooda eegto wuxuu oran jiray anagu salafiyiin baan nahay ma jirto wuxuu oran jiray salafiyiin baan nahay ma jiraan laakiin walaga qofka marka loo tarjumaynayo in la yiraahdo hebel wuxuu ahaa salafiyul mu'taqad ama kana salafiyin in la yiraahdo deetaana way wada nahay aduu salafi baa tahay anigu salafi baan ahay ilaa qofkiisa uu diida mooyaane marka saas u garabigay waxa weeye ictisaamna waa magac iyagu ay sheegteen oo magacaasina ma diidayo inaanay salafiyiin ahayn waa salafiyiin laakiin magacna waa magac dacwi ay ku shaqaystaan qoladanina magacan iyaga sheegtay oo sumad ka dhigtay sumad iyaga u gaara ka dhigtay waa intaas oo wax kala ma waagag Dr. Faisal waxa jira badi culimadeena Soomaaliyeed ee ka mid ka tahay waliba culimada waaweyn ka qayb maaha siyaasadda iyo saaxadda siyaasadda amba si kala aan u dhigay maxaa sababay inaad ururada siyaasadeedda
ururo siyaasadeedada jira aad ku biiri weydaan amba aad ka mid noqon weydaan waa su-aal aada u wanaagsan runtii laakiin waxay u baahan tahay magaranaya barnaamijka waqtigiisu inuu ku filaan doono waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah in badanna in weliba idin soo jeedinaya doodo badan ka qabataan waa laga yaaba dhegeysan doone maxamed ilig iyo tiimkiinu inaad doodo badan ka qabataan aad bay muhiim u tahay waa sax weeyaan waxay isweydiin horta marka hore siyaasadii maxay tahay way siyaasadii waa maamul iyo maarayn bulsho ama waa xidhiir ka dhexeeya qof wax maamula xukumaya iyo mid la xukumayo way markay sidaa tahay waa danayn ama doonis ama baahi bulsho weeye gaal iyo muslimba way dadku ma noolaan karaanba haddaanay isu qaybin madaxii mijo isu qaybin ma noolaan karaan sharciguna sidiisaba kama hor yimaado waxyaabaha baahida basharka oo dhan ka siman yihiin kama hor yimaadee wuu maareeyaayo sida saxsan buu u dugaa sidaa daraaddeed islaamku wuxuu yaqaanaa wax la yidhaha siyaasa sharciya siyaasa sharciya waxa weeye waa tii aynu sheegnay waa xiriirka ka dhexeeya ka wax xukumaya ka la xukumayo oo laakiin lagu qotomiyey shareecada waba intaasba siyaasa sharciya iyo in la taago imaam la sameeyo madaxweyne la sameeya wanigii hadalkayga horna ku jiro waa waajib culimo badan baana tilmaamtay inay waajib tahay sababtoo masaalixda adduunyada ama suuroobeynba haddaan la samaynin laakiin ta badanaaba la isweydiiyo u malayn maayo maanta nin culimo ah haddii xilligii nabi maxamed noolaan lahaa calayhi salaatu wasalaam ama abubakar hadduu abubakar wasiir kugu yeeri lahaa maanta ku odhan lahaa wasiiriin noqo abubakar sidiiq maxmuud bin khataab u malayn maayo qof muslim inuu diidi lahaa ama uu hadal gelin lahaa laakiin siyaasadda laga warramaya waa siyaasadda taagan maanta ee reer galbeedku maamulaan saldhigga iyo gunta uu yahay qolada la yidhaahdo yurmar baan usoo gaabiyaan yurmar wax kale maahe waa yurub iyo maraykanka siyaasadda ay maamulaan labadaasi ee laga yaabo ideolojiyada ay ku dhisan tahay iyo islaamnimadeennu inay kala duwan yihiin tan noocaasa oo haddii aan si kala u dhigana waxaan loo yaqaana dimuqraadiyaddu ay salka u tahay dimuqraadiyadda maxaad wadaado u geli weydeen hadday tahay ama culimay u geli weydeen horta kama marnino culimadu waa ku jirtaa rag badan oo dee ahlul khayra ayaa ku jira dowladda marka muslimiinta sida dowladdeena oo kale qofka muslimka ama culimada saddex arrimood baa kala gudboon qodobka koowaad waa inuu u nasteexeeyo khasabna ma aha mar hadduu xaakimkii muslim yahay xaakimka marka leeyahay waa muslim macnaheedu maaha xaakimkaas waa inuu ceebka saliim noqdaa oo xilligii quruuntii ugu fadliga badnayd ummaddu ayaa xukaamta qaarkood aan ceebka saliim ahayn qaarkood khamriga kacbada ku dul cabi jireen hadday doonaan marka xaakimka noocaas ee muslimka islaamkiisina ku baaqiye afkana weliba ka odhanaya waxa weeye dadka islaamkan ku xukumaya amaba dastuurkii u yaallay waddanku iyo dastuur faqradda ugu muhiimsan ay tilmaamayso inay shareecadu asaasi u tahay islaamka ka noocaas waxaa ka furan kow nasteexo wixii uu ku saxsan yahay in lagu taageero wixii uu ku khaldan yahay in looga nasteexeeyo kaas waa qodobka labaad in lala wadaago oo xilkii lala wadaago xila laga qabto taasina waxaan filayaa dee way jirtaayo iminkaba wadaado badan baa wasiirka diinta ee awqaafta dee waa nin culimaa rag kaloo iyaguna wadaadaayo ayaan culimaba dee lagu sheegi karin oo la odhan waa culima laakiin dee rag lagu yaqaanay inay dee diinta ku toosan yihiin oo dee xilal hayaa way jiraan qaar axsaabta mucaaradka waddanka ka jira mas-uuliyiinka baa jira daba noqda marka lagama marna markay noqoto in xilalkii lagala qayb qaato iyo waddanka dhisidiisi iyo horumarintiisii ta saddexaad tabaysaan haddaba waa ta saddexaad ku khatimaya waxa weeye maxaa urur diimeed siyaasi ah loo furan waayey ta noocaasa ta noocaasi isweydiinta ugu horeysa waxay ka bilaabmaysaa urur diimeed islaami ah madaxweynihii iyo dowladdiina waa islaam macnaha soo kordhinaya maxay tahay ilaa waddanka haddii la leeyahay inta kale waa gaalo kan keliyan baa muslima ururkana muslima waxaanu la loolamayaa axsaab kaloo gaalo ah dee wax la fahmi karay noqon lahayd laakiin nin islaamkiiya tusaalaanoo kale anugu haddaan maanta idhahdo xisbi siyaasiyaan furanaya siyaasadda waxay leedahay marka la tartamayo waxay leedahay waxa af carabiga lagu yidhaahdo qaacida shacbiya qaacida shacbiya waxa weeye waa dadka lagu xisaabtamaya ku dooranaya dadka ku dooranaya aad isku halaynayso ayaa la yidhaahdaa
masaajid baan hayaa dad badan baa igu taxanoo duruustayda dhegeystaa dadka haddaan saydada keeno idhaahdo ii codeeya oo ninkii muslimka ahaa ee iga soo horjeeyay lolamayay aan ka xigsado masaajidkii miyaan colaad u qaaday hadhowta hadduu isagu guuleysto masaajidkii iyo dadkii diinta baranaya anigu diinta aan isku baranay qaabkeeba ula tacaamulaya sidaa daraaddeed mafaasid badan baa ku jira in la yidhaahdo dowlad islaama urur siyaasiya oo haddana le urur islaamiya baanu nahay in laga dhex saaraa laga dhex sameeya arrin saxa ma aha mafaasid badan baana ka dhalata dastuurka waddanka dee mama ogolaba oo qofkii mar haddii ucud iyo watani iyo kulmiya deentuba nin muslimiina guddoomiyaalka kasoo kordhiyay isagoo leeyahay inuu islaami baan ahay muxuu uga jeedaa marka islaaminimadu maxay noqonaysaa marka hadda waxa laga yaabaa inay ku dambayso nooc gaalaysiin ah hadhow marka siyaasadda lagu kala adkaado siyaasaddu waxay leedahay legdan iyo isxanuujin iyo isxiniyo taabashay leedahay marka hadhow lagu xiniyo taabto waxa laga yaabaa inay isu bedesho adiga atbaacdaadii inaad kuwan istiaadaan islaamka aad ka xigtaan oo deedna aad daaqada xaydaanka islaamkaba aad ka saarto sidaa daraaddeed looma baahna laakiin siyaasaddii in la galaa oo qofkii isagoo awoodu leh inuu galaa waxna ka bedeli karaa waxaa laga yaabaa inay waajibba ku noqotaba marka haddii laga geeyo xagga sharciga xukunka sharciga siyaasadda uu gelaya taa dimuqraadiga ah ee reer galbeedkaba waa su'aal muhiim jiddan waa iyada lafteeda waxay ku taan ku sheegayaan sharcigu wuxuu yaqaanaa masaalix iyo mafaasid wax la yiraahdo ilaa culimada qaarkood ay yiraahdeen diintuba waxay u timid laba qaacido kaliya laba qodob si ay loo sugo ay u timid jalbu almasaalix wa dafcu almafaasid wixii masaalix ee wanaagana in la soo jiido wixii dhibana in la riixo marka wax kasta oo wanaag iyo ummadda maslaxad u ah in la soo jiido dhibkii haddii la wada suulin kari waayana yani tusaalaan oo kale haddii la leeyahay qaabka siyaasaddeenu u socoto khaladaad baa ka jira la leeyahay aynu ka soo qaadno hebel ayaa suuragal ah khaladkaas 10% inuu ka saxo dhibaato ka weyna isaga aanay ku imanaynin waajib bay ku tahay inuu galo nabi yuusuf calayhi salaam boqor gaala buu ka hoos shaqaynayay isagoo nebiya oo wuxuu ku shaqaynayay sida iyagu doonayaan dee mid muslim oo khaldamayna oo min baabi awlaa sidaa daraaddeed siyaasadda dimuqraadiga iska daayay dowlo gaalad ah oo madaxweynuhu gaal yahay oo baarlamaanku gaala yihiin haddii maslaxad lagu xaqiijin karo ama dhib lagu riixi karo haddii dhib lagu riixi karo haba yaraado inta la riixaye dhib ka weynana aanu dhalanaynin waajib bay noqonaysaa sababta waxaa layna faray dhibkana inaynu yarayno ama ka suulino wanaagana inaynu wada dhammaystirno ama wixii aynu karayno aynu soo jiidno sidaa daraaddeed masaladu waa masale fiqi iyo faham xeel dheer ku salaysan imaa wax qofku sida isaga odhan karayo dimuqraadiyad waa gaalo lama galo dimuqraadiyaddu waxay u qaybsantaa waxna ideolojiyadu waa kufri oo xukunka ilaahay male shacab baa leh waa gaalnimo laakiin waxyaabaha ay adeegsato dimuqraadiyaddu iminka adeegsato doorashadu ka mid tahay waxyaabaha ka mid ah waxyaabahaas wax u baahan in la eego wax sharci ku banaana waa suuragal in laga helo waxaan ku banaanayn waa laga marka labada in la kala saaro waa muhiim jiddan si mas'aladan loo fahmo taa mar kalena waynu usoo noqon doonaa doctor faysal waxaa jiray gole la odhan jiray golaha culimada somaliland golahaasi qaybaad ka ahay golihii halku ku dambeeyey dhaqdhaqaaqiisi bulshadu ma aragto bal hadda golihii halka uu ku dambeeyey warbixin laga sii golaha horta dee golo dastuuriya waa marka labaad ee xilligii madaxweyne siinaayo ayaa barnaamijkaas aada looga shaqeeyey oo weliba wasiirka diinta iyo awqaaftii hore sheekh khaliil iyo wasiirka madaxtooyada waqtigaa xirsi cali xaaji xasan iyo rag kaloo la joogay aada uga shaqeeyeen meel fiicanna wuu soo gaadhay waana golo runtii dee loo baahan yahay mar haddii dastuurina uu yahay culimadana dee weel wada qaadi kara maaha laakiin waa weel wada mateli kara golahani gole culimada wada qaadi kara ma aha laakiin waa gole wada mateli kara culimada marka dee wuxuu noqon lahaa wuxuu inoo dabdin lahaa ama inoo ururin lahaa fatwadan khaasatan arrimaha waaweyn ee qofkii doonaa uu wadaantiisa darsanayo si waxtaa ehel baanu ahayn taasuu inaga xakamayn lahaa marka waa shay loo baahan yahay de waxay ugu wardambeysay oo weliba aan filayaa in baarlamaankan cusubi inuu wada gacanta ku hayo
waqti dhowna inuu soo bixi doono waxaa dhiman waa wax iska faniye iyo qaabkii laysu waafajin lahaa iyo dee xeerarku badanaaba xeer loogu samayn lahaa shaygu markuu dastuuri yahay talaabada labaad ee ku xigaa dee waa in xeerkiisii la diyaariyaa kadibna markaa xubnihii ay dee shaqo galaan oo markaa waxaan filayaa boroseyskiibuu ku jiraaye caqabad kaleo hortaagani ma jirto waxaana filayaa in baarlamaankan cusubi inuu dedejin doono uu dhammayn doono xeerka lagu maamuli doono laakiin in hawshaa la sameeyo de waa dastuuri madaxweynuhu wuu saxeexay baan filayaa marka waa hawl dhowaan insha allahu tacaala inoo dhammaystirmi doonta biidni illahi tacaala way waxaad halkaa ka dhawaajisay fataawooyinkaasi maxay ahayday la fatwoonayo marka waxaan u fahanay golahaasi sida ugu dhisayay waxa weeyaan in hal fataawo bulshada loo gudbiyo oo aan qoloba mimbar ayna maxay masale ka soo qaadan dowladda somalilan waxa ay sheegtay in aan haba yaraatee la aqbalaynin nidaamkii soomaaliya ay soo siisay faamigii ay soo siisay dhanka xujaajta waxay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta go-aan ah inaan maxayday la tegayn waxaa jira culimo waaweyn oo waddanka oo iyagu maxayday puntland iyo aagaasi maray arrinkaasi maadaama aada culimadii tihiin oo dee culimadu inay u hogaansata ay tahay maxayday sharciga waddanka iyo dee maxaydayaan mas-uuliyiinta aynu u dhiibanay waddanka arrinkaa isaga maxaad ka leedahay horta runtii xajku waa dee cibaado weyn saxna maaha in lagu maareeyo iskhilaafka siyaasiga asal ahaan waa sidaa sacuudigana lagama yeelo dowladaha caalamka islaamika way kala hadlaan inaan xajka marnaba siyaasadda in laga dheereeyo laakiin runtii dee cabashada somalilan ay soomaaliya ka cabatay sidaa dee aan kulliba u maqalnay xaqida ilaahay baa ogee dee waxaa la odhan karayaa waxa weeyaan si khaldan baa loo maareeyey oo dee somalilan xajka badanaaba waxaa lagu qaybiyaa population baa lagu qaybiyaa dee uma cuntanto 350 xaaji somalilan uma cuntanto go-aanka laga qaadanayaana dee waxay u taallay dowladdu number 1 ay ka tahay wasaaradda awqaafta inooga mas-uula iyo dee waxa weeye madaxda ka sarreysa qaabkay u maareeyeen ayna dee waxa weeye waa qaab ay habboon tahay oo ay sax tahay in iyaga looga dambeeyo laakiin waxaan filayaa inaanay jirinba isku dhac culimada iyo ama la khilaafay amarkii dowladda haddaad xusataan somalilan go-aan mar waxay soo saartay go-aan ah in xamladaha qaada xajka maadaama waxa layni siiyey waxay ahay inaan laga qayb qaadan soomaaliya wixii ay soo qoondaysay laakiin go-aanka ugu dambeeyey ah sanadkan somalilan xajkii waa la joojiyay dadta dib u raacdo iyo culimada laleeyahay way dhoofeene garoway ka dhoofeen dee way kala dambeeyeen iyagoo garow joogo markaa dhoofaya iyo marka uu warku soo baxay wasaaradda awqaaftu ay bayaankii kama dan intii hore dhan waxay aniguna ka wada xiriirayna wasiirka xaggee wax marayaan waxa xala ma lahayaa maxaynu yeelnaa waa ka wada xiriiraynay go-aanka kama dambaysta ah markii uu wasiirku uu ku dhawaaqay waxay ahayd duhuradii bacda duhur meelahaas ay ahayd culimadu markay duulayeenna barqadii bay ahayd marka dee wax go-aan oo intay soo baxday oo laysla qaatay oo culimada dowladduna soo saartay oo dee maba jirinba marka laga yimaado masalada xukunkeeda sharciga ah dowladdu xajka ma mancin kartaa mise ma mancin karto laga yaabo masalo cilmi ahaan culimadu isu weydiin karto laakiin waxaan isleeyahay maba dhicinba suurad ah inay dowladdii iyo culimadii ay iskhilaafeen intay dowladdii amar soo saartay culimada yidhahdeen waad iska hadasheen waxba dhegeysan mayno laakiin intii ka dambeeyey mayna ahayn culimadu inay wasaaradda ay ka warsugaan waqtigu ciriiri buu ahaa wasaaradduna waxay naawilaysay xidhiidho kala duwan inta ay samayso in waxaan wax laga bedelo qofka markaa umay suuroobaynin inuu sugo muddo intaa leego hadhow haddii la yidhaahdo iyadoo xajka 3 cisho ka harsan tahay ama 4 cisho ka harsan waa la joojiyey waa la fasaxay dicdiba kama gaarsiinayso marka waxa laga yaabaa ijtihaad qofkan uu ijtihaado shiri war kolleyba si un bay xalun baa soo bixi doonee adigu bal horta yaanay kaatay dadka waxa laga yaabaa qaar baa xaj kaliya xitaa u tagayn laga yaabaa caafimaad inuu tagayaan qaar baa laga yaabaa dadka u galayaan marka waxaan isleeyahay culimadu sida ay mar walba ay dadka ku wacdiyaan waa sax oo ah inaan xukuumadda iyo dowladda xitaa haddii laga dareemo qaabkan ay wax u maareeyeen in uu meelaha qaarkood shareecada ku khilaafsan yahay waa in loo hogaansamo deedna hadhow lala maareeyaayo waxa weeye dee lala saxa laakiin u malayn maayo inay dhacday in wasaaraddii soo saartay
iyo markiiba inay daadna ay khilaafeen culimmadu oo yidhaahdeen dhegeysan waa inuu iska tageen u malaymayo suuradaasi inay dhacday wasaaraduna way tilmaami doontaa insha allahu tacaala waay waxaa jira doctor faysalow khilaafkii siyaasiga ah baa hadda jira khilaafka siyaasiga ah ee xooggan ee maanta waddanka ka jira arrinkaasi adiga sidee buu kula muuqdaa midda kale culimmadu qeyb ma ka tahay isku soo dhaweynta maxay dhahayaan xisbiyada hadda garhka iskula jira waxay ila muuqataa dee horta khilaafku waa shar waay mar kastoo khilaafka lasoo ururiyo laisfahmaana waa shay dee caqli iyo sharcanba dee munaasib ku ah sharciguna ina farayo caqliguna dee uu ina tusayo marka dee qof kastaba way dhibaysaa oo iskhilaafkaasi dee amnigu si toosa waxa weeye maxay tahay amniga iyo kursiga ayna deeqa amniga ayna deeqay kursigu inama deeqo marka dee amniga in la ilaaliyo oo laysu tanaasulo oo weliba cidda midada daabkeeda haysaa ay intay tanaasuli kartay tanaasusho waa shay dee kolleyba dee loo baahan yahay culima ma ku jirta haa dee guddida maanta madaxweynaha la fadhiiday culima ku jirto sheekh ismaaciil dheegaya baa ku jiray yara kale marka dee culimmadu mujtamacay ka mid yihiin wanaagga mujtamacay jecel yihiin inay kala qayb qaataan bay jecel yihiin bale hormuud bay ka yihiin meel kasta oo ummadda wax loogu qabanayo hormuud bay ka yihiin culimmaduyo oo weliba xitaa raad kuma yeelato iyaga intooda udhexeeya isqabsigooda udhexeeya arrimaha bulshada inay ka wada qayb qaataan raad kuma yeelato imika guddida waaheen dee culimmadii o dhan baa ku wada jirta guddida dhaqaale ururinta dibudhiska suuqa waaheen abaaraha marka culimmadu wixii iyaga udhexeeya iyaga u gaaryihiin ee bulshada markay timaado way ka wada siman yihiin oo waxaweye waayo waxa wada ay wada danaynayaan arrimaha bulshada iyo horumarka bulshada iyo diintooda iyo amnigoodaba in loo ilaaliyo in wax kastoo waxaweyaan u sababayana in laga qayb qaato taa diyaar bay u yihiin su-aasha u dambeysay ku weydiinaya doctor waxaa jirta arrimo doodo diineeda had iyo jeer dadkeenu waxay yidhahdaan marka arrimahaasi lasoo hadal qaado arrimahaasi hoosa loo dhaqo oo yaan fagaarayaasha la keenin in xataa maxayday dhalinyaro iyaguna maxayday fikirkooda la qancinayo iyo arrimo doodeed oo diin ku saabsan in warbaahinta madaxa banaani ay soo agaasintaan adigu sidoo aragtaa doctora masaa'isha diinigu dadku waa laba nooc qof waa qof jaahil oo waxba garanayno isagu waxbuu dadka weydiiya ma doodo waxbuu weydiiyaa qofna waa qof wax garanaya qofkaa wax garanayaana dee cidda isleeyahay waad isu dhigantaan ama waxbuuba ku yaro dheeryahay isla celcelin karaan arrimaha marka arrimaha bulshada in si babliga looga hadlaa anigu waxaan u arkaa inay tahay wax wanaagsan dadku ma cabursanaan karaan dadki maadaama aanay cilmigii shareecada aqoon u lahayn in badan oo ka midi masaajidada iyo duruusta ka socota in badan aanay ku xidhnayn caalamkii social media caalamkii isu wada furan yahay globalization wax la yihahdo ayna haystaan qofka waxa laga yaabaa maalintii macluumaad iyo information fara badan buu helayaa oo kala duwan raad bay ku yeelanayaan marka waxyaabaha in laga hadlo oo goob kasta oo dadku ay wada gaadhi karaan lagaga hadlo cid ehel u hayna ay ka hadasho waa qodob saxa weeye laakiin waa in la ilaaliyaa dadka imanaya waa inay og yihiin waxaan su-aashaan ay weydiinayaan haddii dee aanu aqoon diimeed lahayn waa inuu aadaabta iyo ixtiraamka u ilaaliyaayo is ogaadaan naftiisa iyo qadarkeeda uu gartaayo waxa u faray inay su-aal tahay su-aashaa wixii looga jawaabana de inuu ku qanco ama qaato haddii uu yahay qof aqoon cilmi lehna wuu niqaashi karaa uu odhan karayaa sheekh taa iyo sida halkan baa caymiska iyo waxyaabihii kamida halkan baan filaya in lagaga hadlay masaa-ishii ku saabsanayd caymiska waxaan arkaa inay tahay shay haddii la ilaaliyo si fiican loo ilaaliyo in midha ka soo bixi doonaan oo dad fara badani waxaanay maqal amaba ay muhmal kaga sugan yihiin iyo waxaanay aada ugu cadayn kaga sugan yihiin ayaa suuragala inay ugu iftiimay karaan arrimaha ijtimaaciga ka mid a arrimahan dumarka iyo xuquuqdooda ayaa ka mid oo in badan aada looga hadlo oo buuqeed aada u badan yahay oo dumar xuquuqdoodii wax la yeelay run ay tahay qaar wax ka midna run yihiin wax ka mid aan la fahmin waxyaabo badan oo isku booshaaqan baa jira oo mujtamaca ka guuxaya marka in loo furo xiwaaraadka noocaas oo kale ah waxaan arkaa inay tahay shay fiican haddii si fiican loo maamulo waa hagaag daawadayaal halkaa waxaynu kusoo afbeenaynaa barnaamijkeenii fagaaraha su-aalaha barnaamijkani oo aad toddobaadkii hal mar ka daawataan telefishinka caalamiga ee MMTV waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa doctor Faysal Maxamed Cali oo ka mid ah culimada Somaliland sidoo kalena ah aasaasayaasha jaamacadda Najaax ee Burco
دكتور فيصل أدي أدبض وقبات سنتي شيخ إن دقلا سوق قادتي برنامج كني إن ورجينا برنامج شكله أو كوان كثير في سبضنا إن دقلا سوق قريدون. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.